Waxaan kula wadaagayaa sagaal caado oo xun oo maskaxdaada waxyeello u geysanaya ama dhaawacaya. Sagaalkan caado run ahaantii waa kuwo maskaxdaada saameyn weyn ku leh. Haddii aad caadooyinkaas samayso, run ahaantii maaha wax wanaagsan. Waxaad noqon doontaa qof maskaxda fadhiidka ah. Lambarka koowaad waa jimicsiga maskaxda. Jimicsiga maskaxda marka aad maqasho waad yaabaysaa. Waxaad ku fekeraysaa, ma maskax baa la jimciyaa? Run ahaantii sida jirku ugu baahan yahay jimicsiga iyo aalamiitada ayay maskaxduna ugu baahan tahay jimicsiga. Marka muxuu yahay jimicsiga maskaxda? Waa inaad maalin walba aad wax akhrisaa oo akhriska aad joogtaysaa. Maalin walba waa inaad buug akhrisaa ama waa in aad samaysataa qorshe ama jadwal wax akhris. Mar walba oo aad wax akhriso waa mar walba oo maskaxdaadu jimicsi helayso oo aalamiiteynayso. Marka ku dadaal inaad mar walba aad wax akhriso. Haddii kale maskaxdaada way fadhiisan doontaa, waxay noqon doontaa sidii matoor taxaleyste oo kale. Haddaba waxaan kugu boorinayaa inaad akhriska aad joogtaysid. Lambarka labaad waa hurdo la'aanta. Waxaad arkaysaa dhalinyaro badan oo waqti haysta ay ku seexdaan balse aan seexanaynin oo habeenkii oo dhan soo jeedaya ama dhafraya. Run ahaantii haddii aad mar walba aad joogtaysid hurdo la'aanta ama hurdo yarida, run ahaantii waa mar walba oo maskaxdaada ama systemkaaga aad waxyeeleynayso. Haddii aad mar walba aad joogtaysid dhafarka, 3 system ayaa kaa halaabaya. Systemka koowaad waa nervous systemka. Systemka labaad waa digestive systemka ama kan dheefshiidka caloosha. Sidoo kale waxaa kaa halaabaya systemka moodka oo dhan. Run ahaantii mar walba oo aad joogtaysid hurdo la'aan oo aad dhafartid waa mar walba oo maskaxdaada aad jahwareerinaysid. Lambarka saddexaad waa daawashada shaashadaha ama TV-yada ama wax walba oo shaashada oo la fiirsado. Haddii mar walba aad joogtaysid inaad shaashad daawato oo indhahaaga shaashad mooye aysan wax kala qabanaynin, run ahaantii waxay ka mid tahay dhaawacyada iyo waxyeellada ugu weyn ee maskaxdaada soo gaari karta. Haddaba ka taxadar shaashadahaaga ama waxa hadba si aad u daawanayso. Lambarka afraad waa samaynta wax badan hal mar. Inaad hal mar aad qabato hawlo badan, maskaxdaada oo mashquulsan, inaad hawlo badan ama multitasking inaad samayso. Run ahaantii waxay ka mid tahay waxyaabaha laga qaado maskax wareerka ama maskaxdaada dhaawici kara. Marka ku dadaal inaad hal shaqo qabato oo hal wax aad focus garayso. Lambarka shanaad duulimaadka ama falaydka joogtada ah. Inaad maalin walba aad si joogto ah aad u raacdo diyaarad, run ahaantii waxay ka mid tahay dhaawacyada soo gaari kara maskaxdaada ama jahwareerka maskaxeed ee kugu dhici kara. Daraasad laga sameeyay jaamacad ku taalla waddanka Ingiriiska ayaa ku shaacisay in aad ka qaadi karto maskax dhaawac ama maskax jahwareer haddii aad maalin walba aad duulimaad ama falayd aad samayso. Lambarka lixaad ahaanshaha keligaa waqti badan. Inaad keligaa aad waqti badan joogto run ahaantii ma fiicna. Waxaa laga yaabaa inaad fikirto, inaad la sheekaysato, inaad waxyaabo badan ay kuu soo dhacdhacaan, in aad waxyaabo badan aad isweydiisid. Run ahaantii inaad keligaa aad waqti dheer aad keligaa meel ku qaadato maaha wax wanaagsan. Waxaa rabaa noloshaada inay noqoto mid balance ah ama isku dheelatiran. Inaad mar keligaa noqotid oo danahaaga aad qabsatid, mar inaad social aad noqotid, hadba inaad si aad ku dhaqantid. Lama rabo inaad keligaa noqotid, inaad dadka mar walba isaga dhex jirtid. Waxaa la rabaa noloshaada systemkeeda inay middle ahaato. Haddaba ha joogtayn badanaa inaad keligaa noqoto. Haddii aad aaminsan tahay in keli wax lagu noqdo, la soco inaad maskaxdaada aad waxyeeleynayso. Lambarka toddobaad waa isticmaalka xad-dhaafka ah ee maadada loo yaqaano nicotine. Maadada nicotine-ka waxaa madax u ah ama hogaamiya tumaakada ama waxyaabaha xashiishka oo kale. Haddaba waxaan kuu sheegayaa inaad iska ilaaliso maadada noocaasa. Haddii aad joogtaysid waxaad dhaawacaysaa maskaxdaada. Mar walba maskaxdaada waxay ka dhigaysaa
mid maaragtay dareen aan lahayn. Marka maskaxdaada oo aad bilaa dareen ka dhigto marna dareen aad u yeesho, waa dhaawac maskaxdaada soo wajihi doona ama caqabad ama cillad kugu soo bixi doonta markii aad joogtaysid. Lambarka 8 waa akhrinta wax badan hal mar. Inaad hal mar aad wax badan akhriso oo hal mar intaad buug dhan waa akhrinaya aad tiraahdo oo naftaada aad ciqaabto, run ahaantii waxay ka mid tahay culeysyada maskaxda fuulaya kadibna keenaya jahwareer maskaxeed ama dhaawac maskaxeed. Marka ka taxadar, jadwalkaaga u samee wax walbo aad sameynaysid. Maalin walba qayb yar akhri, maalin walba intii maskaxdaadu qaadi karto akhri. Waxba ha shidaynin, adigu kombiyuutar ma tihid. Hal mar buug ha akhrinin, ha isdilin. Marka waxaad samaysaa jadwal samayso, maalin walba dhowr page akhri. Lambarka 9 waa lambarka ugu dambeeya, waa isticmaalka xad-dhaafka ah ee khamriga. Ogow, khamrigu waa waxa ugu weyn haddii aad joogtayso maskaxdaada dhaawici kara ama kaa tuuri kara qar weyn. Haddaba waxaan kuu sheegayaa inaad mar walba aad ka taxadarto khamriga aad cabaysid, miisaankiisa iyo heerka maandooriya intuu la egyahay. Waxaan filayaa muuqaalkan inaad wax badan ka faa'iiday oo ku saabsan dhaawaca maskaxda iyo waxyaabaha maskaxda kaa dhaawici kara. Maxaad noogu haysataa inaad nagu soo biirto oo aad subscribe noo saarto oo weliba aad furato oo joogtaysid daawashada muuqaaladeena adiga faa'iidada kuwa